qofka oo nafta tahira طهارتنا نشيغنا ونفط خير كلغو تربية اللغة العصرية لا استعمالها وتربية الأنفس وقفك مسلم نمادي سيسكضية إنه نفتي سكون رباية إنه كوكرية رباية ضمها عرورته وحلا الرباية قفول مسلم وحبه هي إنه نفتي ستربية نفط وحرق لما ستان الله ما تاكله وحيدوني سي شهوات واسكتر بديه الشيطان وكل ما يهي إذا وحيدوني سعيد هقانك وقبطه عمل كستو حنو أطربتين كفقضة وحكاك بهي وقت وحكاك بهي عزيمة يقوان ذك وحكاك بهي أصحاب ونكسب وحكاك بهي دين في عنا أتقاضته وناك كستو أطربتين تكون نقلته نفط وحيو بهنت إن الليليو أورك قورما لغرته قال يا ربو بوكين تسكبر يدي الله مررته أورك انت الله سوقبته أيا الليلية ومدان هام الله صارين هقان قول الله برا oo kaynta la wada la ereriya oo kolba geed lagu xidhaa oo sanqar badan la maqashiya oo oodiya wax lagu raraa aakhirka haama lagu raraa bari dambe hayin noqda iyo gurgursha yani awrku maalinta koowaad ma soo baxo hayin ama gurgursha ama wax la iska rarta ma noqdo ee mudda la layliya nafta binaadamka waxay u baahan tahay in la layliyo maalinta hore salaatu leelka way ka diidaysaa dadka ha xaman inta ugu taageelimaysa adigoo dhinaca xanta kaga jiro baad sarkaysaa iblaayo markay sheekada ku bilowdo aadna ka jawaabay baad arkaysaa waxa soo dhan naftu way iska wadaysaa laakiin waxay u baahan tahay in hogaaninta lagu xidho la wado oo la layliyo oo la wado ilaa marka dambe dunuubta ay u soo urto oo xumuhu qofku uu la xumaado oo iimaanku uu dhadhan la yeesho sida awgeed buu nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi wuxuu ku tilmaamay iimaanka macaankiisa cidda hesha waxaa ka mid ah buu yidhi halaathun man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saddex ninka dhadhamiya saddex ninka sameeya iimaanka dhadhankiisii macaana wuu dhadhamiyey iimaanku dhadhan macaan buu leeyahay ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay walidalik ba axad culamaa'i salaf waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi 20 sannadoodna naftaan qasbayay inay salaatuleylka u kacdo 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyahay dhadhankeedii baan gaadhay intii hore waan qasbayay buu leeyahay oo hoggaan baan ku hayay inaan layliyo laakiin markii dambe waxaan gaadhay buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaanahu wa tacaala sidaa ogeed wuxuu nabigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان صدح ننكي سمايا إيمانك معانك سود دبي من عبد الله عز وجل وحده منك إلهي سبحانه وتعالى كلي عابده وأعطى زكاة ماله طيب بها نفسه في كل عام وبحية زكاة حوله سيسقوا نفتي سؤال رال لكطهي والربا إنه زكيسته كوي اللي يريد زكيسه في عناب بحية وزكى نفسه بنبوه ونفتي سنة طاهر يالا صدح ذلك يسكو درصده الإيمان بالله وإلهي كالقي إن عابده إن أدمالك بحسودتك إلهي كيري سيسي هي نفط إن طاهر ياشا صدح ذلك يسكو درابو نبوه لي كاسي وحود دمية محي وحد الدمي يقول النبي يقول طعم الإيمان إيمانك معانكيس نبا وحكوري وما تزكية النفس وإيمانك معانكيس هو محيبا لقول إله رسول كسيو النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه أن تعلم أن الله عز وجل أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان وإنه قفكه وقادم حي إنه إلهي معي سيميل كستوشو قبل قضية المراقبة بكشر حي نبي تزكية الأنفس مركا كان وحكوم معنيين يتهي محي inuu qofku ilaahay ilaaliyo wax kasta uu qabanayo inuu yiraahdo ilaahay talow muxuu ka oranaya xalaal ba xaraam ba madan ba ku sugan ma ajar ba ku sugan ma khayr baad ka helaysaa mise shar baad ka helaysaa qofku intaan wax qabanin inuu wax kan arko inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu taalacanayar wax laga yaabo qofka bini'aadamka dunuubta markuu sameeyo inuu isdhaha la dhuumo meelaan dadku ka arkaynin xumaha ku sameeyo laakiin qofka ilaahay si dhaba qalbigiisu iimaanku uu galay wuxuu rumaysay inaan meel lagu dhuntaa jirin adduunku baynu makshuuf iyo qaawan yahay way ilaahay ba ku arkaya mar haddii ilaahay ku arkayana kabtaa ma yeelana yaadka wax ka qarinba mar haddii ilaahay uu ku arkayo subxaanahu wa tacaala meelaad ku dhuumato iyo meel lagu qarsoomaatoona ma jirto sidaa ogeed waxaan leenahay ikhwatii fi lcaqiida
mas'alada in nafta la tarbiyeeya waa mas'alo qof yar iyo qof weyn dadku u wada baahan yahay. waxay leenahay waa mas'alo u baahan naftaada intaad tarbiyaysay waxay ku xidhantahay intaad alla ka cabsigaagu batay. sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. waxba aniga haysu ka ammaanina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. anaa og ka alla ka cabsada baa la leeyahy subxaana wa tacaala. cidda taskiyatu nafsi xaqiiqiya samaysay anaa og baa alla leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ahlu taqwuna waa kuwii maalkooda bixinaya iyagoo rabay inay isdaahir yeelaan, isagoo raba qofku bukhliga iyo shaxnimada, dhabcaalnimada iyo masuugnimada inuu naftiisa ka daahir yeelo. yacni nafta bini aadamka ahi abuur ahaan bay dhabcaal u tahay. abuur ahaan bay nafta bini aadamkii u jeceshay inay iyadu wax yeelato, cidna inaanay wax ka siinin. alanaaniya, keligaa inaad wax yeelato wuxoo dhammin. laakiin waxaad u baahan tahay waa wax lagaa raba inaad nafta ka tarbiyayso, waa iyadaa lagugu itixaamo. walidaalika inaad barto, ilaahay baa qur-aanka muxuu ku leeyahy wauxdirat ilanfusu shux. nafta bakhaylnimada waa lagu soo ururiyey baa la yidhi gebigeedba. laakiin maxaa kale ilaahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun. ninka awoode ee ilaahay qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisu, waayo naftaadu yay ku bakhaylaysaa, aday kugu bakhaylaysaa. waxna aad ururinaysa waad ka dhiman un adigu ma lihid. inan iyo inankii u hadhatoona danka ma lihid. adigu maxaad leedahay? waxaad leedahay waxa aakhira kaaga sii horreeya. waxa aad daarta aakhira ku dhisataad leedahay. daaraha dunida waxaad ku dhistay waxba kuma lihid. waxaad ku leedahay maxay? daartaada aakhira waxaad ku dhisatay. cidda aad ku bakhaylaysaa waa isla adigii. waman yabkhal fainamaa yabkhal calaa nafsi. ninka bakhaylaya wuxuu ku bakhaylaya waa maxay? waa naftaadii. idan waxaa loo baahan yahay nafta in la tarbiyeeyo. ilaahay markaasuu leeyay wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naartaasi waxaa alla ka fogeynaya kuwa ilaahay ka cabsada oo ah kuwa maalkooda u bixinaya si ay isu daahir yeelaan. waxaan leenahay alla ka cabsiga iyo tarbiyatu nafsigu waa isku xidhan yihin. qofkii alla ka cabsaday alla ka cabsigiisu batay ayaa qofkii naftiisa rabeeyey ee si wanaagsan u galay. waana kaasi uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay uu ka baryay. walidalik baa culammadu waxay yidhaahdaan taqwada iyo taskiyada la tilmaamayaaba waxa weeyaan qofkoo wixii xaaraanana ka dheeraada, wixii ma'muuraad ee la farayna la yimaado oo sameeya.